وكاس هذا وحصوار وركي آدم بري وحنا نسعد واني لو Deputy Governor Wajir County Wajir Ahmed Ali Werar Mashua, I'm very sorry. وعرب وركي يلا فيديو وحنا مهد وين وعلينا يا مدحوين حسن الشيخ وأن وقتي مدحوينها أن زايد سكول الشقيني يا مدحوين شيخ شريف مدحوين ديني يا سبيكر كيني هوري يا مدحوينه ساوث ويست iyo walaalkay saaxiibkay wasiirkii hore iyo madaxweynihii hore Galmudug Soomaalida waxay dhahdaa islaan uunsan jirin haday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa هذا waxaan u mareynayaa Soomaaliya dad siyaasiyiin oo awal uusan jirin ayaa hadda uusanaya marka meelo badan laga gubanaya annaka haddaan nahay jaaliyadda ama siyaasiyiinta ama bulshada Soomaaliyeed ee waddanka Kenya annaka waxaan rabnaa Soomaali oo degan oo nabadgelyo iyo xasilooni oo madaxda Soomaalida meelay jiraan ama siyaasi aadaan oo dawlad goboleed ama siyaasiga dawladda federaalka waxaan rabnaa waqti kasta inay u daneeyaan ummadda iyo shacabka Soomaaliya oo tooda iyo tan ummadda hormariyaan annaga waddanka Kenya taariikh ayaan leenahay oo qof tirtiri karin markii taariikhda la qoro historyga la qoro dawladda Kenya intay u qabatay Soomaaliya ilaa waqtigii burburka waddan u qabtay adduunka ma jiro dadkii qaxootiga soo dhaweeyay anaka ahayn oo maanta ilaa maanta qaxootiga Soomaalida dadka magangeliyay oo gurigoodii labaad waa anaka wadamadan jiiraanka hadda aad garab ordaysiin waqtigaas way jireen laakiin Soomaali ma soo dhaweynin dawladii hore oo markii madaxweyne Moi uu jiray iyo madaxweyne Kibaki dawladii Soomaali dib u soo dhisayeen waxaa lagu dhisay egi laga reebati carta waxaa lagu dhisay waddanka Kenya maantana alxamdulillah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida ku nool Kenya meelay ka yimaadeenbo qiimo iyo sharaf ayay ku joogaan waddankaas dawladdan ka muuqanaa baarlamaanka ka muuqanaa maxkamadahan ka muuqanaa jaamacadaha carruurtana ka muuqaan ganacsigan ku jirnaa marka waxaan rabnaa Soomaali oo mid ah madaxweynayaasha meesha fadhiyaan iyo madaxweyne Deni
يا مدحوين أحمد إسلام وحان إذي كبر يينا وهذا كبر يينا إنات أمد الصومالي لو تنازلوا لسكو كينو لمديو مدحنمada maanta ay jiri barinba jiri doonto dawladda maanta way jiri barinba jiri doonto laakiin shacabka iyo wadanka uu jiri doona marka anaga maanta waxaan idin wadnaa message oo reconciliation oo la isku dulqaato siyaasiga wuxuu leeyahay dib badan buu leeyahay waa guurka oo kale siyaasiga bed of roses mo waliba wadan hadda soo kacayo oo dhibaatooyin badan soo maray marka waxaa la rabaa experience-ki siduu Sheekh Shariif uu dawladda ku waday in la weydiiyo madaxweyne xasan sheekh in la weydiiyo prime minister hore in la raadiyo oo aqliga la isku keeno oo markaas ay to Soomaaliya hal meel loo jiheeyo annaka nasiib daray noo tahay inay madaxda Soomaaliya iska qabsadaan inay madaxda Soomaalida ay dad kale ay raadsadaan xarana inaka dhaxdiina annakana diyaar ah idinahay odaygaas noo weyn wuxuu jiraa 80 buu jiraa weli madaxweynaha waddanka annaga ula tashada annaga tashalay waxaan dabaaldegaynay maalin la yiraahdo Moi Day waxaan sugaynay inaad dabaaldegaa samaysiin xasan sheekh maalintiisa ama sheekh Shariif laakiin waa nasiib darro sheekh Shariif waxa dhaadeen boorka ma bixi karo marka madaxdii hore waa in la sharfo sheekh Shariif waa in la sharfo sheekh xasan sheekh waa in la sharfo marka Soomaaliya waa in la isku dulqaato ugu dambeyn maamaadi hore waa idin dhiibay mid kale idin dhiibaya laba nin baa meel isku raaceen waqtigii salaada markii la gaaray ayuu midna wuxuu noqday imaamkii midna wuxuu noqday kii ku daba tukanay kii imaamka markuu salaadii u xirtay la rabay inuu akhriyo faatixada wuxuu akhriyay ataxiyaat kii daba taagnaa muska amase wuxuu yiri markaad fariisato waxaad akhrin doontaa suugi markaad fariisato waxaad akhrin doonto yaa suugi hadda ininka Soomaaliya saan u arko ماشي اللي ربنا فاتح على خرسين يا التحيات قبل أولين مرة تيجي سبحان الله ما تويني ما ناي مدحوين أنك دتك وحيس ويديان كينيا انترست كده حوي أنك انترست كلا ما قبلنا انترست كنا وحويه صومالي والنبض أو دجن مدة اللبات interest كانوا محوية جبلان 800 كيلومتر أو حدودا لنا أنك جبلان وها قصف أي نقطة هاي national security interest كودن كانوا أنك حقوق حرية جبلان أنا قال الله يو دعما اللي قصو دورتي بقول يا فرتن يا سدح أرضي أو جامعات أي هالمال الودلي إذا ماذا نضع مالين كسمشن جوانا كل ماذا أيكو أمة الصومالية إيرالين أيكو أمة كينيا إيرالين وهذا ماذا جبلان أي دكتور نبض إيش الصومالي نبض نقطه أنك 1 minute مسي جوجينو جبلاند إذا ماذا كينيا أنا فرت يا لوفيقين إذا ماذا كينيا وحيكون جوجان
Soomaaliya magaca AMISOM ciidamada Kenya waa sidii ciidamada Ethiopia waa sidii ciidamada Burundi waa sidii ciidamada Djibouti marka anaga xogaa discrimination loo sameeynina magaalada Kismaayo oo qiimaha leh ciidamada Kenya ay idin qabteen markuu Mzee Xaaji uu ahaa wasiirka difaaca marka walaalayaal nabad baa idin keenay waxaan rabnaa dawladda Jubaland dawladda Puntland dawladda Galmudug South West all the region in lisku imaado iyo dawladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo aan midnimo muujisiin inkoo mid ayay Soomaalida Kenya idinku faanaysaa inkoo mid ayay Soomaalida Djibouti idinku faani marka nimayo waa nagu noqonina islaantii uusan jirin oo uu satay oo meel badan ka gubatay aan nagu noqonina marka soo dhawaada waxaan ugu dambeyn aan apology ka wadaa governorka Wajeer governorka Garis iyo governorka Mandera oo dibadda ku maqan waxaan mahad weyn u celinayaa deputy speakerka baarlamaanka Senate-ka Soomaaliya walaalkay Abshir Ahmed oo asagana meeshan joogo waxaan leenahay Jubaland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dawlad goboleedka meelay jiraan Soomaaliya ha noolaadaan madaxweyne Islaam waxaan leenahay ilaahay ha ku xifdiyo 4 sano oo soo socotana dawladda Kenya way kula shaqeyn iyo dawladaha IGAD. Assalamu alaykum.